السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelkayga markale anigoo ah Faadimo hadaad meeshan ku cusub tahay please ha ilowin subscribe kana taawatid sida ula socotid waxyaalaha dambe aan soo geliyo haduu Ilaahay yiraahdo. hadaad meeshan ku cusub tahay kusoo dhawaad aad iyo aad u mahadsantahay. hadaad meeshan hore ugu jirtay kusoo dhawaad. maanta mawduuceenu wuxuu yahay sidee ninkaaga oo sidee ninkaaga like ku furfurnaan karaa. I think that's what I'm trying to say. sidee adi ninkaaga oo ku haysan kartiin relationship oo fiican oo ku haysan kartiin nolol fiican. hadda bini'aadanka dhan isku mid ma aha sida ogtihiin. nimankan waa iska dhib badan yihiin, ilaahay khayr ha siiyo, waa ogtihiin. laakiin adiga dumar ahaan waxaa laga rabaa inaad sameysid inaad ninkaaga kastoo aad siisid break waxaan ka wadaa inaad ninkaaga dabagelin, inaad ninkaaga aad dhihin hiblaayoy ninkaygi wuu soo baxay iga fiiri meeshas baabuurkiisa ma yaalaa. inaad ninkaaga markuu guriga u imaado inaad telefoonkiisa aada baarin. Trust me, that's the last thing. waxa ugu dambeeya aragtid adduunka inaad sameyso waxaa ninkaa telefoonkiisa inaad baartid, because hadaa telefoonkiisa aad baartid oo meeshuu aaday aragtid inaad ogaatid wuxuu sameeyay, qofkuu la hadlay, wax alla ninkaa wuxuu ku dhaqaaqa daarta inaad ogaatid. adigaa ku dhibtoonaysid, adiga stresska qaadaysid, ninkin wuu kaasii ordayaa. fahmi? haddaad rabtid adiga ninkaaga inuu ku noqdo nin fiican harto waxaa rabaa adiga inaad qof fiican noqotid. adiga inaad koodi asiga kalsooni aad tusisid oo markuu guriga imaado aada buuq ku furin, aada dhihi intee ku maqneed, yaa la hadashay, yaa ku soo wacay, telefoonkaaga i tus. harta ani been idima sheegaya, shaqsi ahaanteedii aan ka hadlayaa. ani iyo ninkayga hadda 11 sano waaye intaan isqabno, sanadkaanay 11 sano tahay. ilaahay aan ku dhaarto iga sareeyo maalintii qiyaamo, ilaahay oo ii jeeda, ilaaha su'aalayo. mafahmay? been ma sheegi kari, beenna ma jecel inaan sheego. weligayga ninkayga telefoonkiisa inaan qaaday ani ahaanteedii ma baarin, asna weligay telefoonkayga inuu qaaday ma baarin. meeshaan waxaarto ninka inaagta hadaysa maanta kalsooni isku qabin, ay ahayn dad sheekeysanayo, ay ahayn dad iska warhaayo, gurigaas ma dhismaayo. lacag wax ma tarto, guri qurux badan wax ma taro. waxaa wax taro qalbi fiican, qalbi nadiif ah iyo qalbi wanaagsan. ninkaaga haddaa rabtid inuu ku noqdo nin fiican i dhageyso. waxaa aniga sameeyay oo ninkayga nin fiican igu noqday aan kula qaybsanayaa. haddii aad rabtid waa sameyn kartaa, haddii aad rabinna choice-ka adaa iskale. tan koowaad, ana ninkayga telefoonkiisa ma baaro. sababtan u baarayn waxay tahay I have to inaan isku sheego waa nafsad ahaanteedii. ninkan aniga ma dhalin, ani asaddexa isku keentay. berin hadduu calafkeen dhammaado waan kala tegaynaa. haddaan telefoonkiisa si kasta aan u baaro, nin hadduu rabo inuu wax qariyo wuu qarin karaa. magacuu rabo uu ku qoran karaa, hooyuu ku qoran karaa hadduu rabo. marka adiga hooyo hadday telefoon ku qoran tahay maxaa is dhehaysaa allah hooyadiisuu la hadlaayay, saaxiibkiisuu la hadlaayay, kanuu la hadlaayay. ninka hadduu rabo inuu ku qayaano anyway uu faangareynaa, si uu kugu qayaano ma weynaayo hadduu ugu talgalo inuu ku qayaano. haddii adi aad ka badbadsatidna 100% uu ku qayaanayaa, because adiga u tilmaamhoosid yaa la hadashay, yaa waa qofkaan kusoo wacay, yaa tahay naagtaan la hadlaysid dhara aad dhehaysaa. weligayga ninkayga hadduu qof la hadlaayo ma weydinin, ma dhihin yaa la hadloosaa. asna aniga asi af Soomaali ma yaqaano. haddaa nin la hadlaayo iyo haddaa naag la hadlaayo weligiis ima dhihin yaa la hadloosaa. marmar waa laga yaabaa inuu dhaho waxaan ku sheegi rabaaye yaa la hadloosaa. aan dhaho hooyadeen la hadlayo may, walaalkeen la hadlayo may, qofkii aan hadlay aan dhaho aan kugu soo celiyo. laakiin specific like qofka aad la hadloosid yaa waaye weligiis ima dhihin asoo su'aal qabin. tan koowaad. tan labaad, ninkaaga intuu shaqada ku maqan yahay ha wicin. haddaa wacdeen ha ahaato mid hadal wanaagsan. hadduu ku soo waco waqtiga bareega uu ku jirana buuq ha ku furin. ha dhihin maxaa waaye maxaa ii soo wici weyse, haddaa waa kusoo waca telefoon ma iga qabanin. waxaa ogaataa ninka inuu shaqo ku jiro. ha wicin ninkaaga, ha dhihin ilmihii ay dhibooyin. ilmaha hadday ku dhibooyin asi guriga wuu joogaa maya. adi la dhiil garee ilmaha. asaga hadhow markuu imaado
uu nasto kadib wixii dacwo aa qabtay mise wixii hadal aa qabtay tartiib uu sheego. ninkaaga sariirta markaa tagtiin ha la murmin. That is the biggest mistake. ninkaaga hurdo maanta dhan soo shaqeynaya oo daalan oo rabo inuu seexdo oo sariirtiis ku nasto markaa jaq meesha buuq aa ku furtid, ninkaaga uu kasii fogaanaya. ninkaaga sariirta markuu saaran yahay buuq ha ku furin. sariirta waxaa loo koraa inaan la seexdo, lagu nasto iyo lagu baashaalo. ma loogu korin sariirta inaa lagu murmo oo buuq la isku furo. ninkaa markuu albaabka kasoo galo, example kasoo qaad, maalintii dhan uu shaqeynaya, adi gurigaa joogta, markuu imaado albaabka kasoo galo, hay macaani seetaan fiican tahay, caafimaadkaaga ka waraan, waa iska fiican tahay, because ninkaaga the end of the day geedka kusoo harsan lahay, kusoo hoyan lahay adiga waaye. nimanka ma jecla inay dhibaatadooda dadka kale u sheegtaan, ma jecla inay gurigooda hadday naagtooda dhib ku haysa mise haduu shaqo dhib ku qabo ninka inuu nin kale saaxiibkiis u tago ogama sheekeenaayo. laakiin adiga dumar ahaan markaa dhibaato yar aad la kulantid qofaa la sheekaysid oo wax u sheegatid ma weynaysid. marka waxaa sameynaysaa markuu guriga imaado asaga warayso, hay macaane shaqada maanta ka waran, maxaad soo kulantay, maxaad soo aragtay, sidee ahayd, asaga warayso. asaga kuu sheego. wuxuu isleeyahay allah qofkan wuu kaa naxaa, you know, qofka adigu waa jeclaan lahayd maanta inaan qofku waraysto ku dhaho haye hiblaayo caafimaadkaa kabar, maanta noloshaada see ahayd, ina shaqada kabar inaa lagu dhaho adigu waa jeceshahay. so why not asiga aa u dheheynin. the only qof maanta uu haysta ninkaaga adigu waa markuu kusoo guursado hooyihiis uu kasoo tagay, walaalihiis uu kasoo tagay, aduu kuu soo go-ay. adna sidii oo kale hooyada waa kasoo tagtay, walaalaha waa kasoo tagtay, ninkaaga oo soo go-day. adiga asaga aa nolol wada qaybsanaysiin. adiga haddaa nice u noqotid ninkaaga nice u kuu noqonaa. teeda kale ninkaaga ilmaha ma lagu dhibo. ilmahaaga laguma dhibo. ilmaha asagana wuu dhalay harto, adna waa dhashay. laakiin ilmaha badanaa dabeecadda ilmo hooyaa taqaano, aabaha wuxuu ka ogyahay malaha, maalinta dhan uu shaqo ku maqan yahay. marka guriga imaado ilmaha ku dhimin, hadhihin war ilmahaaga la hadal. ani waan dhahaa sometimes markuu dhahay ma dhihin isku kaa faalinaya, waan dhahaa ilmaha ma la hadlashid, meel ha naga fadhiistaan waan dhahaa. laakiin wax joogto ah ma aha, marmar aa laga yaabaa inaan dhaho ilmaha hadhihin war ilmaha hayso, maskaxdaan soo degsanaa waan baxaa. asaga u sheeg, waxaa dhahdaa maalinta hiblaahi maalin saa ma bixi karaa, like saaxiibaday ma lasoo sheekaysan karaa, maya magaalada ma aadi karaa. 3 beri 4 beri ka hor u sheeg sidoo asna ugu diyaar garoobo. laakiin markuu albaabka kasoo galo adee daagab saartay albaabka ay ka baxdid, that's not good. ma fiicna taas, because qofkan wuu daalan yahay maanta inuu soo shaqeynaayo, inaa uu nasto u baahan yahay. maanta wuxuu ordaya waa adiga ciyaalka, haddii ilma aan haysanin maanta wuxuu u shaqeynaya waa adiga, mas-uuliyadaada uu soo qaaday, asagaa wax ka sugaysaa. fahmay? marka ninkaaga haddaad rabtid asaga inuu nin daacad kuu noqdo, adiga daacad noqo. haddaad rabtid ninka hadal wanaagsan inuu kugula hadlo, adiga hadal wanaagsan ula hadal. haddaad rabtid ninkaaga inuu ku jeclaado, adiga jeclaaw, tusi jeceel, tusi naxariiso, masaaj sii, you know. marmarka qaarkiis waxaa la dhahaa nimanka fadhiiso masaaj aan ku siiyo, saliid soo qaado, kuma masaaj gareey. hay adna beri sidii kuu sameynaa, gacmo wada jir maxaa la dhihi jiray, wax maahmaha aan ka siina isku dayooya. anyways ninkaa marka adiga wax fiican u samaysid, asi wax fiican ku sameynaa. marka adiga xux aa ku noqoto, asna xuxu ku noqonaa. so adiga haddaad ninkaa inuu ku fiicnaado, adiga qof wanaagsan noqo. dumar haddaan nahay 89% nimankeen wax alla waxa anaga rabno waa inoo sameynayaan, waan ka keensan karnaa. laakiin kibir aan ugu jiro, kibirkana meel ugu geynayo malaha. maanta ilmaha hadduu ilaahay idin siiyo awlaad, ilaahay idin siiyo ilmihiin isla korsada. ilmaha masawirka qaad u dir, waxaa dhahdaa aragga ilma waxay sameynooyin maanta. marka asaga guriga imaado oo ilmihii cabaar uu la baashaalo, ha ku dhibin, ha sugin ilaa ilmaha ka seexdaan. waqti dambe ilmaha seexi, adii as waqti isla qaata is very important. waaye ninka iyo naagta inay waqti isla qaataan. fadhiista hal tv show aa jeceshihiin fiirsada, shaahi isla caba, la wada sheekeysta, bustaha isla dawooshta, hoosta iska gala.
jacaylku wuu sii kordhaa. laakiin markuu asaga imaado ilmihii hadday buuqayaan qaylinayaan ilaaha noo dhaafo ilmo awlaad meel walba ay joogto ay buuqayaan oo ilmihii markaad seexisid ninkii asba madaxa xanuunay oo asna iska seexdo oo adna dhinac ka seexatid waa saana u kala baxoosiin isku soo dhamaanoosiin. ilmaha ninka waqti isla qaataan muku dhahay ilmihiisa iyo asaga kala qari wuu dhale waa inuu waqti la qaataa. waqti ha la qaato intuu as ilmihiisa waqti la qaadanayo adi already ilmihi casho waa siisay way ku diyaarsan yihiin musqusha gal soo qabeys inta ka qabeysanaysid oo alaabta uu cashay oo dishwasherka mis gacan waxa ku dhaqays aad ka sameeysanaysa asi ilmihiisa waqti yar oo macaan badan isla qaadanayo. marka hawshaad soo dhameysad hay ilmo soo baxa ku dheh aabihiin habeen wanaagsan ku dhaha ilmihii wad sariirtooda geey seexi bustaha soo qaad soo noq ninka hoosta ka gal. ninka ina hoosta ka gashid maxaa ku diiday? ninkan adaa soo jeclaatay asaa ku soo jecla waa isoo aroosteen xalaala isku tihiin wax dambi ma galowsid. hoos iska gala busta soo qaado tv-ga shido nalalka iska dadamiya maskaxdiisa u dagee maskaxdana way ku dagee idinkoo wada faraxsan aa sariirta tagaysin. sariirtana laguma buuqo. sariirta qolkaas hadaad gashid oo jiifka wax alla waxa colaad aad qabtid albaabka kusoo dhaaf because qolka waa qolka waxaa loogu talagalay inaad ugu farxo iyo inaad la seexdo. marka saas samee. tan telefoonka waan ka hadalnay tan dabagalka waan ka hadalnay wax walba waan idin sheegay. ani waxaan jeclaa wixii wanaagsan wallahi inaan idinla sheer gareeyo ma jecli wax been iyo wax oo view aan ku raadinayo inaan inta soo fadhiisto ma jecli. waxaan jeclahay wixii ani ii shaqeeyo inaan idinkan gabdhaha walaalahay meeshaan ku jiro aad baraweysiin oo idin shaqeeyo. ninkaaga nice u noqon sidoo asaga nice kugu noqdo. ninkaaga maalin uu joogo okay 5 bari soo shaqeeyay 2 bari fasax leeyahay adna 5 bari waa shaqeynaysid because ilmihiya hayse adna 2 bari haysata sabti ahad waay hadda guriga lagu wada xiran yahay. laakiin marka kalan ka hadlaaya maalin asi ha qaato sabtiga asi ha wareego hadduu tin soo jaranayo ha soo jarto hadduu saaxiibadiisa aadayo ha aado. waxaa ogaataa ninka maanta adi arkaysa inuu 20 jir u ahaay nin weyn u ahaay adi ma soo korinin daduu yaqaano hortaada dadku hortaada yaqaan ha ka celinin ha dhihin hiblaayo lama hadli karto hibloo lama hadli karto. wallahi billahi bay midii sheegay ninkayga facebookis gabdhihii high school uu la dhiganayay weli ugu jiraan weligeygana ma dhihin iska tirtir because dadkan hore isku soo yaqaanay aniba ma jeclin oo dhaho wiilkaas hore u taqaanay noloshaada ka tirtir. xuriye iska qaad waa xuriye iska qaadnimadan ma fiicna kalsoonida shay qaali waay ma fahmay ha dhihin like adi haba dabagelinbo because maskaxda bini'aadanka waa wax yar. haddaa israacraacsiisid ninkan oo adi dhalin waa ku dhufanaysaa. marka adisa ugu dhufanin oo awlaadaadna aga dhex bixin ninkaaga kalsooni sii sida adna kalsooni ugu heshid. isku kalsoonaada farxad sii sida idin sheegay wax alla waxa u sameyn karto nice ninkaaga u sameey. ha dhihin jaceylkayga hadaan tuso oo isku kibrinaya hadduu arka inaan aniga jijilicsanahay wuu igu kibraya. that's the problem. ninkaaga haddaa adiga tusin inaad jeceshahay asigana kuma tusaayo inuu ku jecel yahay. jaceylka labada dhinacoo ka imaadaa. haddii oodi ninki jecleen ooda rabin oo buuqda ku jiraysa oo markuu imaada ku qaylinaysa oo markuu baxay ku qaylinaysa oo markii la jeexanayo qaylinaysa oo markii adiga waxa u ekaanaysaan ku dhahay qumayo wallahi billahi bay midin sheegay facaaga ka haraysa aragaaga qayr maayo. ninkan shalay markuu soo guursanayay wuxuu soo guursaday gabar qurux badan oo labisan oo makeup marsan oo hataa makeup la'aan ani harta makeup ma jeclibo hataa makeup la'aan uu soo guursaday. bari markay 3 cunug 4 cunug 5 cunug dhashay iyada dhan way is iloobaysaa. waxay ku mashquulsan tahay ilmihii guri nadiifis. ninkan intaas ma jeclo oo ninka wuxuu jecel yahay inuu arko naagtiisa quruxda badan. u fiirso okay u fiirso caaw ninkaaga caaw maanta baroobay ninka markuu guriga imaado qabayso okay cambuur baati xiranin
shay kale qurux badan xira cambuuriyaal samaraa jirto surwaal ifan waa ku joogi kartaa haddaad jeclaada surwaal inaa banaanka ku baxdid surwaal gurigaa waa ku dhex joogi kartaa xaaraanka ama ah ilaahay kaama xaaraantameynin inaad ninkaa isku qurxisid isoo qurxi wallaahi bilaahi aa ku dhaa wax alla wuxuu sameynayo wuu iska dhigaa aduu attention ku siinaa laakiin adi markii oo tintaas inta ka taagan tahay cambuur baati labada dhinac ka jeexan aa wadatid muku fiirinayo muku damcaayo ani hataa anoo naag hataa muku damci lahayn iska dhaaf nin rag muku damcaayo muku fiirinayo agtiis wax maka tihid laakiin markaa labisan tahay adaa isjeclaanaysa adaa hadda markaa makeup marsatid oo istaagta muraayada sometimes misqancisidoo telefoon aan isku qaadanaa markaa makeup marsano oo dhar qurux badan aan wadano waa isku sawiraynaa because waa isqancinoonaa like waa isjeclaanoonaa ninkan saasoo kale leewaayo markuu arka naagtiisa oo kala xiran wuxuu leeyahay maasha allah nasiibaan leeyahay laakiin naagtii hadday nolosheeda dhan ilmihii kusoo ekeysiiso ninka naag kaloo raadsanaa ninkaa naag kale inuu raadsado maxaa ku diiday marka adaaba iska riixow side markuu guriga ku imaado waa ku qayline dhar fiican uma gashanaysa iskuma labisaysid ilmihiyaa korkiis ku garaacaysaa may ilmihiyaa ku dhibaysaa wareegaa ka aadaysaa wallaahi beri naag kale markuu kula aroos waxaa leedahay allah naaga lela aroosay adaa isku keentay walaashay inaa naag lagula arooso because adiga naagnimadii waa lagaa waayay ma aha inaa oo ninka cunto u karisid oo guri nadiif maanta dhan uu dhex jiifo ninka naag nadaafad badan wuu jecel yahay naag ninka attention siisan aad u jecel yahay oo dhahda macaane maxaan kuu qabtaa maxaan kuu kariyaa maxaa jeceshahay caaw inaan ku cashaysid ma aha baastada ilmaha u walaaqday bariiska ilmaha u walaaqday inuu cuno laazim ma aha ani mar walba kuma dhahay laakiin ninkayga wallahi waan weydiiyaa marka qaarkiis waxaan dhahaa maxaan kuu kariyaa maxaa jeceshahay inaa cuntid markaas wuxuu dhahaa wixii ilmaha cunaa iska cunaa maya iska dhaaf ilmaha adi maxaa jeceshahay nafsad ahaanta inaan kuu kariyo casho yaroo macaan badan aan u karinaa qado yaroo qurux badan aan u karinaa because ninkan anigii sidoo asaga mas-uul ana iga yahay ana asaa mas-uul ugu ahay marka qayri caafimaad idin rajay I hope inaad iga xumaanin no offense xumaati kama wadi waana la iga tahay iyo walaaltinimo la iga tahay iyo inaan wax idin sheego waxa ani ii shaqeeyo inaan idinkan idin shaqeeyo khayrka idin la jeclahay ee wanaaga insha Allah mar kale kulanto wacan haddii ilaahina gaarsiiyo qayri caafimaad idin rajay salaam